dadku waxay ahaayeen kuwo xaalad ba'an ku sugan. Labadii isjecel ee kala fogaada ma awoodin si fudud oo ay ku xiriiraan. Ardaygii ka soo dhoofa reerkooda ma uusan helaynin waddo fudud oo uu reerkooda kula xiriiro, ilaa uu ka yimid barnaamij arrintaas oo dhan beddela. Haddaba muxuu yahay barnaamijkan cajiibka ah ee ka dhigay xiriirka dadka u dhaxeeya mid aad iyo aad u fudud? Yuuna yahay qofka keenay fikraddaasi? أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. السلام عليكم. وأتكم حسن تاي داوشة فيديوغان كسو دوو شاكو إيو فكرة. magacaygu waa Yuusuf Sakiin. Dadku waxay ahaayeen kuwo aad ugu dhib qaba inay la xiriiraan dadka ay jecel yihiin kadib marka ay kala fogaadaan. Wiilka haddii uu ka soo tago gabar uu jecel yahay oo uu ka dhoofo, aad ay ugu adkayd inuu si fudud kula xiriiro. Sidoo kale gabadha ma ahayn mid fudud inay la xiriirto wiilka ay jeceshahay. Ardayga haddii uu ka soo tago reerkooda si uu wax u soo barto oo u soo aado waddan kale, way ku adkaan jirtay inuu reerkooda si fudud kula xiriiro. Sooma aadan dhegaysan jirin cajalooyinka laga soo diri jiray Sacuudiga? Wiilka wuxuu qorayaa warqad, warqadan ayuu wuxuu u dhiibayaa qof kale. Qofkan waxay ku qaadanaysaa bil si uu u gaarsiiyo qofkii warqadda loo waday. Haddaba arrintu waxay ahayd mid aad u adag, ilaa uu ka yimid barnaamijkan beddelay wax walba. Barnaamijkan wuxuu beddelay xiriirka dadka ka dhaxeeya, wuxuuna ka dhigay mid aad iyo aad u fudud. Adiga oo gurigaaga iska jooga, waddanka meeshaad doontid ka joog adduunka, unbaad warqadda hadda qoraysaa, isla markiiba waxay gaaraysaa qofka kale, gacaliyahaaga. qofkaad jeceshahay, gabadhaad jeceshahay, gacalisadaada, isla markii ayay gaaraysaa warqadda, isla markii ayayna akhrisanaysaa. Hooyadaada, aabbahaaga, isla markii ayay gaaraysaa warqadda. Haddaba muxuu yahay barnaamijkan cajiibka ah ee beddelay nolosheena, ee beddelay xiriirkeena? Barnaamijkan waxaa lagu magacaabaa Hotmail. waa isticmaashaa Soomaa? waan ogahay inaad isticmaashid. dhammaanteen waan isticmaalnaa, ilaa hadda waa la isticmaalaa. walow uusan ahayn sidii hore oo hadda Gmail uu ka tambadiyey, balse weli awoodiisu way joogtaa barnaamijkaas. Haddaba su-aashu waxay tahay, maxay tahay sirta guusha barnaamijka Hotmail? yaana soo saaray, aftiinka u soo saaray? waa kuma qofka ay ka timid fikraddaasi? fikraddaasi waxay ka timid wiil Muslim ah oo dalka Hindiya u dhashay, magaciisana lagu magacaabo Sabir Bahatai. Sabir wuxuu soo galay dalka Mareykanka 1988 waxbarasho ayuu u yimid. wuxuuna galay jaamacadda Stanford, halkaas oo uu ka baranayay barnaamijyada kombiyuutarada. kadib markuu jaamacadda uu dhameeyay oo uu ka qalin jabiyay, wuxuu shaqo ka helay shirkad Apple qaybta kombiyuutarada. kadibna markuu isagoo meeshii jooga ka shaqeynaya ayaa waxay isbarteen wiil lagu magacaabo Jack Smith. kadibna waxay isla keeneen fikraddan. waxay ka wada hadlayeen sidii ay ku samaysan lahaayeen barnaamij u suurta gelinaya in qofka uu la xiriiri karo qof kale iyadoo aan la ogaanin. ayagoo si gooni u sheekaysanaya, fikradaha isu weydiisanaya, ayaa waxaa u yimid maamulihii shirkadda. kadibna wuxuu arkay inay si gooni ah mar walba u faqayaan, si gooni ah u hadlayaan. wuxuu ku yiri, joojiya wada hadalkan idinka wadiin dhexdiina ah. wana joojisiin hadalkan dhexdiina ah. meeshan shaqo ayaa loogu talagalay, ka joojiya. isla markii ayuu wuxuu go'aan ku gaaray Sabir ama Sabir in uu barnaamijkan sameeyo. Hotmail ayuuna aftiinka u soo saaray.
1996 ayuuna banaanka yimid Hotmail. Emailka Hotmail wuxuu suurto geliyay qof kasta in uu qofka kale la xiriiro iyadoo asaga uusan ka cabsanaynin ama lagu arkaa ama may miisooyinka faa'iidooyinka uu leeyahay waxay tahay marka hore horta waa bilaash, lacag ma ahan. midda labaad waxay tahay waa sirri, waa shakhsi khusuusiyad adiga unbaa ugu xaq qoranaysid. haddaba waxaan oo dhan waxay u suurto gelisay barnaamijkii inuu si dhaqso ah ku faafo. midda saddexaad waxay tahay meel kasta aad joogto ayaad ka isticmaali kartaa adduunka. waxaa u baahan tahay oo kaliya inaad internet haysatid. soo ma jeedid? haddaba middan dadka waxay ka dhigtay in lagu hoobto barnaamijkii markuu saan usoo baxayba. sanadkii ugu horeeyayba waxaa hal mar wada galay 10 milyan wax ka badan ayaa isku qoray barnaamijkii Hotmailka. meesha waxaa fadhiyay oo arkaya oo kala socda oo haysta barnaamijyada iyo kombiyuutarada iyo internetka waxaa haysta markaas Microsoft Bill Gates wuxuu arkay in barnaamijkan cusub usan caadi ahayn uu ku socdo si xawaare ah. haddaba uu ka masayray kadibna wuxuu usoo bandhigay Sabiir wuxuu usoo bandhigay lacag wuxuuna ku yiri waan kaa iibinaya barnaamijkan waa inaan kaa iibsadaa. uu ka diiday gorgortan ayay isla galeen ilaa markii dambe 1998 Sabiir uu ka iibiyay Microsoft Hotmail. Bill Gates ayaana iibsaday. laakiin wuxuu shardi ugu xiray Sabiir wuxuu yiri waxaan doonayaa 400 milyan ayaa laga siiyay. wuxuu yiri balse shardigu wuxuu yahay in anigana shaqo la iga siiyo oo ka shaqeeyo oo ka mid noqdo khubarada ka shaqeeya Microsoft. hal sano ayuu ka shaqeynayay Sabiir shirkadda Microsoft. kadibna uu isaga tagay barnaamijyo kale ayuu samaystay. gooni ayuu u noqday qof isku filan. sidaas ayay ahayd bilowga barnaamijka Hotmail. waxyaaba cajiib kale waxay tahay Sabiir markuu lacagtaas uu helay wuxuu ku noqday wadankiisii hooyo Hindiya. halkaas oo uu bilaabay inuu ku caawiyo ardayda aan haysanin wax lacaga, aan awoodin caruurta aanan awoodin inay wax bartaan. wuxuu u sameeyay macadyo bilaash ah. lacagtii wuxuu ku faangareeyay wadankiisii in badan. ardayda aan awoodin inay wax dhigtaan, kuwa aan lacagta haysanin, intaas ayuu ku caawiyay macadyo ayuu u furay ay wax ku bartaan. hadda waxaynu isweydiinaynaa fikradda sheekadan cajiibka ah. hadda waxaynu soo gaarnay qaybta fikradda sheekada. haddaba maxay tahay fikradda aynu kala soo baxayno sheekadan cajiibka ah? waxaynu kala soo baxaynaa 1. tuuji maskaxdaada. waa inaad ka fikirtaa mar walba sida adigana aad adduunkan wax ugu soo kordhin lahayd, sida adigana adduunkan aad wax u dhigan lahayd. Sabiir wuxuu ku fikiray siduu xal ku keeni lahaa. kadib markii maamulihii shirkadda uu ku yiri ha isla hadlina, kaligiina ha sheekaysanina, isagana wuxuu ku fikiray siduu uu xal ku keeni lahaa, siduu uu ku samayn lahaa barnaamij u suurta gelinaya in uu la sheekaysan karo qofku rabo, uu wax u diri karo isagoo ka murgeynin, ka walwaleynin ama lagu arkaa ama lagu qayliyaa. soo ma jeedid? haddaba mar walba isku day inaad adigana xal keentid, wax keentid, fikrad keentid, wax ku soo dartid adduunkan. midda labaad, raadso saaxiib aad ku kalsoon tahay, kadibna fikradaada u soo bandhig si aad guusha iskula gaartaan. runaantii dad badan oo aynu ku soo aragnay sheeko iyo fikrad, waxaynu aragnay qisadooda ama sheekadooda in guushooda mar walba ay ku xirnayd saaxiib wanaagsan. sida Google oo kale, shirkaddii Google sirtu waxay ahayd in Page iyo Brin ay saaxiibo ahaayeen oo guush isla gaareen. hadda u jeedaa Sabiir iyo Jack Smith inay sidoo kale ay fikradan isku caawiyeen. haddaba aaday muhiim u tahay inaad raasatid saaxiib aad ku kalsoon tahay oo aad fikradda isla wadaagtiin oona guusha isla gaartiin. midda saddexaad,
waxay tahay aamin fikradaada kuna kalsoonow. Fikradaada waa inaad ku kalsoon tahay oodna og tahay in adduunka dhan ay gaari doonto, in dadka oo dhan ay ka wada faa'iidaysan doonaan, oo aadan marnaba fikradaada dhaliilin, oo aan dhayalsanin, oo aadan fikradaada marna u malaynin inay tahay mid hooseysa. Ku dhig fikradaada, aaminna inay tahay fikrad aada muhiim u ah oo ay dadkoo dhan u wada baahan yihiin. Sabiir waa ujeedaa Bill Gates markuu usoo bandhigay markii hore wuu ka diiday, ilaa markii dambe uu la gorgortamay, uu lacag fiicanna markii dambe uu u gaaray, weliba shardi uu ku xiro, uu yidhi waa in anigan aan shaqo ka helaa oo shaqo layga siiyaa Microsoft. Fikradaada marka aad aaminsan tahay waxaad gaaraysaa meel aada u sareysa. Haddaba intaan oo dhan ayaynu kala soo baxaynaa sheekadan cajiibka ah. Noloshu waxay guul ku abaalmarisaa qofka maskaxdiisa toojiya oona aamina fikradiisa. Hadda waxaynu soo gaarnay qaybta su'aal iyo laylis. Su'aashu waxay tahay, ma leedahay saaxiib? Ma jiraa hal saaxiib midkaas oo aad ku kalsoon tahay oodna aaminsan tahay inaad la wadaagi kartid fikradaada si aad isula guulaysataan? Layligu wuxuu yahay qor 3 fikradood. 3daas fikradood oo aad aaminsan tahay inay xal u noqon karaan qaar ka mid ah mushkiladaha adduunka ka jira. Haddaba ma ka heshay videogan? Ku qabo like, la wadaag saaxiibadaada. Sidoo kale haddii aad ugu cusub tahay ku qabo subscribe. Tan iyo hadduu alla yiraahdo intaynu kaga kulmi doono sheekada iyo fikradda soo socota, waxaan ku leeyahay mar walba aamin fikradaada. aad ayaad u mahadsan tahay. أبر محتسبا dadka guusha gaara qofba si ayuu ku gaaraa, balse qofka aynu maanta martida u nahay wuxuu ku gaaray guusha si cajiib ah. Sheekadiisuna waa sheeko aada u macaan. da'diisu waxay ahayd 36 sano. wuxuu ka adeegi jiray masjidka weyn jaamaca Al-Azhar. ardaygii intuu carooday ayuu wuxuu ku yiri ninkii, fiiri waxaad samaysay. haddii aad ogaan lahayd dadaalka iyo juhdiga iga baxay qoritaanka aan qorayay buuggan waxaan ku qoray, haddii aad ahaan lahayd qof aqoon leh oo wax garanaya waad dareemi lahayd, balse see ku dareemaysaa waxaad tahay qof jaahil ah. فأكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا.